Viagra wuxuu lumin karaa aragtida maxaa yeelay wuxuu yareeyaa qulqulka dhiigga ee tagaya indhaha halka uu siyaadiyo qulqulka dhiigga ee tagaya xubinta taranka ragga. Viagra wuxuu inta badan ku yimaadaa qaab kaniini ahaan waxaana laga qaataa afka wuxuu ku keeni karaa dhiig kar ama wadnaha oo qofka istaaga. Viagra waxaa laga yaabaa inuu si dhaqso u shaqeeyo haddii qofka uu qaato calooshiisa oo maran. daawadan waxa ay kamid tahay daawooyinka aadka looga ganacsado waxaana laga iibiyaa qof kasta iyada oo loo sharxin dhibaatooyinka uga iman kara. Kaniinigan Viagra ha isku qaadanin hal mar ka badan maalintii. Odayaasha gabdhaha yar guursanaya haddii aad leedahay wadna xanuun waxaan kaala talinayaa in aadan guursanin gabar haddii aad guursatana in aadan awood zaa'id ka doonan kaniinigan Viagra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ونكسر صاحب بيال سود واتان أنا كلها يبرها بولشة الدكتور سمير عبد الله بطان ما أنت وحنا وضع عوان سامين كيسوتا عوان كاسو مدبر عن كوي عناي كهديسة وحنية هي داودا أرجدان وحالي هذا كنيني جاني فياجرا أما سومالي دو تقانا فياجرا وداو كمدا كو عنسن اللي جود داويو كعسل أنت رجع أما عدو الرؤية قانو الركتايل ديسفانكشن لكن رجع سوماليات سيدي أي ربان أي استعمالنا ما أنتوا حاربين أن كهذا دور أهل كو وام حي كنيني جن يلا وقتل قلنا استعمالان قفك استعمال لبعضهم وعوق كل ما وام حي فائدة اللي جه لا سيدو كله سيدي استعمالان ضد كسومالي مسيهين ضد كنا إيوه قزدا أما الشيء كذا وقوم يمسن تاسيو مد يقول صوتي إن فيجا كسوهذا laba qiso oo labadu aad u xanuun badan ayaa igu soobay inaan bulshadeeda ka wacyi geliyo daawadan iyo saameynteeda ina keena fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqato YouTube channelkayga Dr. Samir Abdullahi Botan waxaan ka codsanayaa inaad ii subscribe gareyso haddii aad muuqaalka ka daawanayso Facebook page-kana waxaan ka codsanayaa inaad sidoo kale noo follow gareyso haddii aad ka mid tahay saaxiibadii hore noola joogo waxaan ka codsanayaa inaad noo like gareyso share iyo comment inaad nagu caawiso si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale mahadsan feegaha ama Viagra waa mid kamid ah daawooyinka ugu caansan ee loogu talagalay in lagu daaweeyo kacsi la'aanta ragga waa xanuun ku dhaca ragga oo loo yaqaano erectile dysfunction haddaba kaniinigani qaab nooce ayuu u shaqeeyaa wuxuu u shaqeeyaa in uu siyaadiyo qulqulka dhiigga ee xubinta taranka ragga taas oo ka caawinaysa inay xubintii kacdo haddaba markii qulqulka dhiigga ee xubinta taranka ragga uu siyaado waxaad ogaataa xubno badan oo jirka muhiim u ah oo dhiiggoodii loogu talagalay inuu ka yaraan doono meeshaasina halis ayaa ka iman karta kaniinigan Viagra waxaa loogu talagalay inay qaataan ragga waliba da'doodu ay tahay 18 sano iyo ka weyn laakiin waa kuwa qaba ciladan erectile dysfunction laakiin looguma talagelin wiil 20 jir ah 30 jir ah 40 jir ah qof nadiif ah oo aysan cudurkan helin daawadani cudur ayaa lagu daaweeyaa kaasi oo ah ragga waaya dareenka raganimada Viagra wuxuu inta badan ku yimaadaa qaab kaniini ahaan waxaana laga qaataa afka kaniinigan Viagra wuxuu leeyahay doosas kala duwan wuxuu ku yimaadaa 25 mg 50 mg 100 mg saddexdaas doos ayuu ku yimaadaa waxaana la qaataa inta badan hal saac ka hor xilliga galmada sidoo kale waxaa la qaadan karaa 30 daqiiqo ka hor xilliga galmada kaniinigani wuxuu shaqayn karaa muddo gaaraysa ilaa iyo 4 saacadood Viagra caadi ahaan wuxuu bilaabaa inuu shaqeeyo markuu jirka qofka ku jiro 30 daqiiqo ilaa 60 daqiiqo muddo ku dhow hal saac wuxuuna shaqayn karaa 5 saacadood balse markii qofka uu dareenka bilaabo saacad kadib wuxuu jirka si toos u shaqayn karaa ama xubinta ay u kacsanaan kartaa muddo 4 saacadood inkasta oo 4 saac kadib ay daawada qofku jirkiisa ku sii jiri karto balse meesha uu ku joogsanayaa dareenkii kacsanaanta nasiib darro marar dhifa ayaa waxaa dhacda xaalad loo yaqaano priapism waa xaalad adag taasi oo soo wajihi karta qofka isticmaalay kaniinigan waxaa dhacaysa in xubintii 4 saacadood iyo 5 saacadood ka badanba ay dami diido ayna noqoto mid iska kacsan taasina waa cilad aad u daran taasi oo ah xaalad emergency una baahan in si degdeg ah loo xalliyo qofka la kulma xaaladan wuxuu u baahan yahay inuu si degdeg ku gaaro xarunta caafimaadka si arrintaasi looga xalliyo priapismka ama kacsanaanta xubintu waxay keeni kartaa dhibaato aad u daran taasi oo ah in xubintii ay dami weyso sidoo kale ay xanuun u qabato qofkii ayna dhaawacdo unugyadii ay ka samaysnayd xubintii taranka ee ragga si Viagra uu shaqeeyo sida sax Viagra waxaa laga yaabaa
yaabaa inuu si dhaqso u shaqeeyo haddii qofka uu qaato calooshiisa oo maran sidoo kale waxaa macquul ah haddii qofka uu ku qaato cuntooyin sida cuntooyinka ay dufanku ku badan yihiin in waxtarka kiniiniga ay hoos u dhacdo amase shaqadiisii dhanba uu qaban waayo ilaa intee in le'eg ayay qaadanaysaa in Viagra laga saaro guud ahaan nidaamka jirka qofka kadib qaadashada Viagra heerka daawadu si tartiib ah ayay u yaraanaysaa 4 saacadood kadib ayaa waxaa bilaabmaysa inay hoos u dhacdo heerka daawada laakiin Viagra in guud ahaan laga saaro jirka qofka waxay qaadanaysaa muddo 24 saacadood haddaba dhowr arrin ayaan kala talinayaa ragga qaata daawada waxaan fariin u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee aad u isticmaala kiniinigan feegaha ama Viagra kuwaasi oo aan lahayn cillad caafimaad darro oo ay u qaataan inta badan sheega inay ka raadiyaan raganimo iyo in awoodoodii ay la bijbaariyaan waxaan leeyahay inta aad raadinayso awood taadi ka sii baxsan waxaad kala kulmaysaa caqabado iyo dhibaatooyin oo qayb kamid ah aan hadda hore ugu soo sheegay daawadan waxa ay kamid tahay daawooyinka aadka looga ganacsado waxaana laga iibiyaa qof kasta iyada oo loo sharxin dhibaatooyinka uga iman kara waxaan aragnaa marar badan oo noogula keena isbitaalada odayaal ku jira kooma kuwaas oo soo isticmaalay kiniiniga weliba ayagoon aqoonin waxa uga iman kara qaarkoodna way u dhintaan cilladaas darteed haddaba taladaydu waxa ay tahay kiniinigan Viagra ha isku qaadanin hal mar ka badan maalintii maxaa yeelay waxay qaadanaysaa in jirka laga saaro 24 saacadood ha qaadanin Viagra haddii aad qabto wadna xanuun ama aad qaadato daawooyinka nitritis wuxuu ku keeni karaa dhiig kar ama wadnaha oo qofka istaaga Viagra wuxuu lumin karaa aragtida maxaa yeelay wuxuu yareeyaa qulqulka dhiigga ee tagaya indhaha halka uu siyaadiyo qulqulka dhiigga ee tagaya xubinta taranka ragga Viagra wuxuu u daran yahay dadka qaba cudurrada macaanka sonkorta iyo weliba dhiig karka Viagra wuxuu keeni karaa saameyn aad u kala duwan saameyn fudud iyo weliba waxyeelooyin halis ah waxyeelooyinka fudud ee uu keeni karo Viagra waxaa kamid ah madax xanuun cabur sanka oo qofka caburma aragtida qofka oo in yar isbedesha sida labalabayn ama se iftiinka oo qofka dhiba dhabar xanuun lalabo finan murqa xanuun iyo weliba dawaqsanaan haddaba calaamadaha waxay ku dhici karaan dhowr saacadood ama dhowr maalmood gudahood laakiin haddii qofka oo madax xanuunka iyo cilladu ay sii hayaan dhowr maalmood ama asbuucyo waa in aad tagtaa dhakhtarka amase farmashiyaha aad daawadaasi ka soo gadatay waxyeelooyinka halista ah dhibaatooyinka halista ah ee ka dhasha Viagraha aad ayay u daran yihiin balse inta badan ma dhacaan waxayse dhici karaa mararka qaarkood waxaana ka mid ah dhibaatooyinkaas oo keeni karo in araggii qofka uu dhibaato soo gaarsiiyo taasoo ah in hal il ama labada indhoodba qofkii ay u shaqayn waayaan oo si degdeg ku galo indho la'aan degdeg ama se oo waayo maqalkiisa sidoo kale waxaa dhacda in maqalka qofka dhagaha xaggiisa inuu dareemo gambaleel ama guux inuu ka yeero dhagihiisa sidoo kale xasaasiyad ayaa dadka qaar ku kacda sidoo kale wuxuu leeyahay priapismkii oo ah inay xubintii kacsanaato weliba xanuun ay ku hayso qofkii ilaa inay dhaawacanto xubintii taranka waxaa kaloo dhici karta dawaqsanaan ama inuu qofkii galo kooma haddii Viagra lala qaato daawooyinka qaar waxaa ka dhalan kara cudurrada wadnaha sida wadna xanuun garaaca wadnaha oo hoos u dhaca iyo weliba stroke inta badan waxaa xaaladdan inay ku dhacdaa dadka qaba cudurrada wadna xanuunka waxaa jira odayaal Soomaaliyeed oo qaba cudurrada wadnaha qaatana daawooyinkii loogu talagalay kuwaas oo guursada gabdho aad u yaryar lana faca ah caruurta ay dhaleen ama ay dhali karaan kadibna markuu odaygii waayo qanaacadii gabadh yar wuxuu isku dayayaa inuu tabarka raadiyo daawadan Viagra kadib markuu daawada qaatana waxa uga dhalan kara cillado fara badan sida inuu galo kooma inuu noqdo stroke dad kuwa qaarkoodna waaba ay u dhintaan sababta ugu weyn ee ugu kaliftay inaan mawduucan ka hadlo ama daawadan Viagra waxay tahay sanadkii la soo dhaafay waxaan inta badan ka shaqaynayay ICU oo ah qaybta daryeelka gaarka ama la geeyo dadka ku jira koomada ama xaaladda halista ah bishii ugu yaraato waxay soo maraysay 2 case ama 3 case ama ka badan oo odayaal ah odayaashaasi oo ka weyn da'da 60 kuwaasi oo koomadan u soo galay gabar yar oo ay guursadeen darteeda markii ay isku dayeen inay qanciyaan kadibna ay isticmaaleen daawada ayna ka doonteen farmashiyaal weliba ayagoon la tashan qaatiirtoodii ka daaweynaysa cudurrada wadnaha ama waxaa laga yaabaa inuu isku ogeyn oo qabay odagaasi dhiig kar oo kale kama dambays asagoo kooma ku jira oo aan damiir lahayn ayaa nagula keenaa xarunta marka waxaan rabaa 2 qodob inaan la taliyo
qof koowaad waxay tahay odayaasha qaarkood ma haystaan dhaqaalo ay gabar yar ku guursadaan waxaa laga yaabaa in caruurtooda ay u guuriyaan marka waxaan leeyahay walaal god madow ha gelinin aabahaaga hana u horseedin dhimasho dhaawac iyo weliba xaalad aad u halis badan tan labaad waxay tahay odayaasha ayagoo hantida haysta doonayana inay guursadaan gabdhaha yar waxaan leeyahay adeer la joog marwadaadii ku taqaana raganimadaadana fahansan waxaa fiican inaad ayada la joogto soomaaliduna waxay dhahdaa meeshii lagu qubaysto waa lagu qalalsadaa sidaas darteed waxay ku wanaagsan tahay shimbirba shimbirkiisa inuu la duuro odayaasha gabdhaha yar guursanaya haddii aad leedahay wadna xanuun waxaan kaala talinayaa in aadan guursanin gabayar haddii aad guursatana in aadan awood zaa'ida ka doonan kaniinigan Viagra laakiin haddii uusan lahayn wadna xanuun awoodiisun ay yar tahay odayaashu way qaadan karaan daawada aad ayaad ugu mahadsan tahay la socoshada muuqaalkinan caafimaadka fadlan wixii talo tusaale ah wax nagula wadaagi kartaa commentiga aad ayaad u mahadsan tahay